السلام عليكم. welcome to Assis TV show. maanta waxaanu ka hadlaynaa seerumka ugu fiican adduunyada warbixintiisa oo dhammaystiran usoo diyaar garooba. Thank you. Welcome back. Okay, maanta waxaanu ka hadlaynaa insha Allah serum aad u fiican oo aan anigu isticmaalo iyo kumaan qof adduunyada oo kale, iyo sababta loo jecel yahay, sababta caanka ku yahay, waxyaabuhu u fiican yahay, warbixintiisa oo dhammaystiran insha Allah ayaan idinku siinayaa halkan. ugu horeyn waxa weeyaan Advanced Night Repair Serum kambaniga Estee Lauder ayaana samaysa. Masha Allah, anigu kanun baan isticmaala markay noqoto face serum. Dad fara badan oo comments kasoo bixiyey videogii hore aan ka hadlayay serumkii xumaayay Dr. Rochelle. Commentka waxay igu soo weydiinaa si haddaba mid fiican nooga soo waran. waan idin yara sheegay waxaan idinku ori way ku jiraan YouTube-kayga videoyo marsadkiisa iyo nighttime routine-kayga waxaan kusoo daray, laakiin maanta insha Allah waxaan idin siinaya warbixintiisa si gaara anoo aan wax kale ka hadlayn. Videoyada kale wuxuu ku dhex jira nighttime advanced nighttime repair-kii oo dhammaystiran. Okay, so maanta keligii baynu ka hadlaynaa. ugu horeyn kan waa laba size oo kala duwan. kan waa size-kiisa weyn, $200 ayuu Mareykanka jooga. anigu priceska Mareykan baan kaga iibsadaa, so ka Yurub ma garanayo, wuu isbedelaya. kan waa ka $200, kana waa ka $75. mid baa u dhaxeeya $100 noqonayo. kambaniga Estee Lauder wax fara badan buu sameeyay. wuxuu sameeyay skincare nooca oo ah linesku waxa weeyaan waxa jira Advanced Night Repair line-ka oo noocyada quraaradaha buniga ku jira. layno kala jira mid silver, mid casaan, mid purple light ah, mid aqua ah, kullu magacyo kala wada leeyihiin. mid kastana wuxuu leeyahay serumyadiisii, eye creamkiisii, face creamkiisii habeenkii, kii maalintii SPF ka lahaa, kuwii nadaafada lagu meeriyay cleanserskii, wuu isu dhammaystiran yahay line kasta. line dahabiya jira moringa ka samaysan. morongadu aad bay u fiican tahay. so Estee Lauder caan ayay ku tahay horta skincare-ka, looguma yimaado xaggayga. aniga waa kambani taariikh dheer ku leh makeup-ka iyo skincare-ka. kambaniga Estee Lauder waxa la sameeyey oo la asaasay 1946. okay, boqolkii sano ayuu kusii ordaya. masha Allah, tabaaraka Allah. intaa uu jirayna wuxuu ku taagnaa cago adag oo aan marnaba aanay dhicin in alaabtu sameeyo hadal ka yimaado ama aanay noqonin alaab laysku halayn karayo. marka alaabtoodu weligeedba ilaa bilowgii waxay ahayd tayo. waa kambani Mareykana, New York ayaana lagu asaasay. okay, gabadh baa asaastay. gabadhii way dhimatay. iminka Esther ayaa la odhan jiray, way dhimatay. inantay ayeeyada u ahayd ayaa iminka kambanigii wada. so kambanigii weli familigii buu ku jira oo dhaxal buu galay. okay, so inantay ayeeyada u ahayd ayaa Irene baa la yidhaahdaa, ayaa hadda gacanta ku haysa kambanigii. weliba dhinaca cadarada ayay aad iyada usoo saartaa. line cadaro u gaara ayay leedahay. so kambaniga Estee Lauder makeup quality-diisu tahay top, skincare iyo cadaro intaba wuu sameeyaa. okay, maca burushyada makeup-ka way sameeyaan. macluumaad kale oo aan idinku daray insha Allah taa waxa weyn kambaniga Estee Lauder waa kambani maamo ah oo kambaniyo fara badan oo kale ayuu soo saaray oo uu iska lahaa kuna magacaabnaa. Estee Lauder kambanigaasi waa kambaniga soo saaray MAC. Estee Lauder ayaa soo saartay oo dhashay. waa kambani ay iyagu asaaseen oo Estee Lauder hoos tegayay, iminkana magac samaystay. masha Allah, ya kambaniyo kale oo fara badan ayay soo saareen Estee Lauder. waxaa ka mid ah kambaniga la yiraahdo Jo Malone ee sameeya candleska udgoon, mushamacyada iyo waxa guryaha lagu udgoonaysiiyo. cadarana way sameeyaan dadku marsadaan. Jo Malone waa kambani brand name oo aad u qaaliya. kambaniyo kale oo fara badan ay soo saareen waxaa ka mid ah Bobbi Brown cid kasta way taqaanaa. Bobbi Brown-ka kambaniga makeup-ka sameeya caanka ah ee waxaan ku masha Allah-ga ah kaana iyakaa soo saaray. masha Allah, iyo kambaniyo kale oo fara badan. so Estee Lauder waa kambani magac cajiiba leh oo isku halayn alaabtiisu leedahay oo kambaniyada kasoo hoos baxay iyo kusoo saaran xitaa waxaan ku masha Allah yihiin. so waad keenaysa masha Allah
inaan isku halayn karayo anigu alaabtoy doonto ha noqoto waxaan ka iibsado Estee Lauder isku halayn baan ka qaba skin care kaan marsado kulli waa Estee Lauder kuma safaado Estee Lauder midda kale aad waxay ugu badan tahay oo skin carekeeda oo dhani waxa weeyaan waxyaabaha anti agingka ka hortegaya cimri degdega maqaarka okay so maanta su'aal baa la isoo weydiiyey commentka inan baa tiri 26 jir baan ahay I hope inaad maqlaysid waana ku salaamaya waxaa tiri 26 jir baan ahay ma marsan karayaa bay tiri serumkan ay sheegaysay gaar ahaan haddii loogu talagalay isagu inuu cimri degdega maqaarkii anti agingka uu u fiican yahay haaban ku uri 20 jirka xitaa marsan karaya markaad maqashaan skin care aad ku aragtaan anti aging micnaheedu maaha qof gaboobay oo maqaarkiisii carcooray ama duuduubmay ama cimri da'dii ka muuqato ayuunbaa loogu talagalay has odhanina no inanta yar way marsan kartaa wuxuu u noqonayaa un difaac dheeraada waayo qofiba qofku ka da'yar yahay markuu sii gashado maqaarkiisa faa'iidooyinka hortaga anti aging iyo gabow degdegoo ku yimaada way kasii fiican tahay so 20 jirku wuu marsada ilaa 70 jirka iyo 80 jirka waa la marsanaya wuu ka wada dhaxaynaya okay skin care oo dhan waa sida so ha ka baqanina xitaa beri waxaan maqlay dad leh كريمة أنتي أيجين كإنن يربان هذا المرصدو ميان ضدوب ما ينو absolutely not وسيحو تشينيا أوكي حسوس تقلا جينك وحرماني لباتني لشاني لباتني تود حيسا هاد بس اللوك العافيمات في عني هي حلي جاسو استاجية أوكي ده لقب بلعب دوري لباتن كهوسة خلاص وين بلودين مرصدو أنتي أيجين سكين كير لباتن كبهذا دافتو أنتي أيجين سكين كيرين بلوضو إن شاء الله أوكي marka taas waxay ahayd macluumaad guud oo company-ga idinka siinaysa aad idinkii insha Allah u fahamtaan company-gu inuu yahay company biidni Ilaahi tacaala la isku halayn karayo insha Allah oo lacagta ka galaysa ay u qalmayso okay hadda haddaan insha Allah idinkala hadlo warbixinta serumkan company-ga Estee Lauder wuxuu soo saaray 1982 okay almost waxa weyn 40 sano ka hor ayaa la soo saaray wuxuu ahaa serumkii ugu horeeyay ee taariikhda skin care-ka beauty industry-gu ay soo saaraan yani beauty industry waxa looga jeedaa yani kambaniyada sameeya alaabta la isku qurxiyo iyo waxay wajiga la marsanaya skin care oo dhan taariikhda iyadoo aan serum ba la aqoonin Estee Lauder ayaa ugu horeysay soo saartay waxaanu ahaa kan laftigiisa ee la yiraahdo Advanced Night Repair Serum okay marka waxa 40 sano maxay sameeyeen waxa lagu sameeyay markasta reformulation waxa la yiraahdo dib u habeeniyo si cusboonaysiiniyo yani wax kiyaabo kale lagu daro markasta waxaan ku ori tayadiisi la sii hagaajiyo ayuu ku jiray intaas oo sanadood imika marxaladu marayo kan waxa weeyaan kan iyo kan way kala horeeyeen so samayskooda yarbi ku kala duwan kana ka sii tayo fiican ka dambeeyay kan wuxuu soo baxay 2020 bro weeyaan waxa weeyaan kii u dambeeyay sameeyaan marka imika tayadana socota tayadana waa heer sare laakiin waa tii dhowr sanadood la isticmaaliyo ka sii horeysay so technology-gii baa sii advance noqonaya markasta cilmigii baa sii fara badanaya waxa soo dhan xisaabta waa lagu daraa oo marba cilmigu halku marayo technology-gu halku marayo horumarku halku marayo wixii marba maqaarku u baahan yahay waxa weey waa lagu sii kordhinaya oo taas inkastoo magacii uu yahay 40 sano ka hor loo bixiyay halkii laga bilaabay waxaan ku korun baa loo socdaa mid kale xisaabta ku darsanaysaan Estee Lauder serumka markay sameeyeen Estee Lauder waxay ahayd company-gii ugu horeeyay adduunyada ee serumkooda ku dara hyaluronic acid okay hyaluronic acid waxa laga bartay Estee Lauder mid kale lagama baranin indan kambaniyadoo dhan imika hyaluronic acid baa lagu daba cararaya hyaluronic acid kuna waa ka aynu ku dhalanay jirkeenu marka hore uu sameeyo collagen maaha waa kala jaad hyaluronic acid waxa weey ka wajiga iyo jirka bucbuca ka dhiga sida babygu markuu dhasho kale okay ma sha Allah marka Estee Lauder taariikhdeedu waa taariikh caynka u adag alaabtay sameeyso alaabta tayada noocaas leh halka waxa idinka muuqata wax kasta inay kambaniyada kale oo dhan kaga horeeyeen okay
oo maasha allah ay yihiin. anigu koodaasun baan isticmaalaa. maraykan markay noqoto waa number 1 serumka maraykan. okay, yurub iyo meelaha kale ma aqaano, laakiin maraykan sanad kasta looguma yimaado. sanadba sanadka ka dambeeya awardka waxa qaata advanced night repair kan serum ee Estee Lauder sameeyaan. isagaa ugu iibgal badan, isagaa sanad kasta wanka gala. waxaasna waxay ka imanayaan dadka feedbackooda iyo sidai u iibsanayaan aan kala go-a lahayn. okay, so dadkii helaya maraykan, yurub oo dhan, carabahoo dhan waa laga wada helaya maasha allah. dadka wadanka jooga way u dirsan karayaan, dadka dibadda jooga waa loo soo diri karaya maasha allah. so dadkii niil lahaa siran fiican asiya nooga soo waran. this is it. alright, kaa mid ka fiican anigu ma garanayo. waa kaan marsado, waa kaan idinla wada jeclahay. go for it, soo iibsada. hyaluronic acid baa ku jira waxyaabo fara badan oo advance ku jira oo kaale araga. jirkaaga markaad marisid qalaylkoo dhan buu ka bi'inaya isagoo aan dhalaal iyo saliid dusha kaa saarin. okay, isagaa la horreysiinaya, creamkaad ka daba marsanaysa. creamki intuu nuugo ayuu faa'iidadii creamkoo dhan kuu geynaya maqaarka hoostiisa, waayo hyaluronic acid baa ku jira. hyaluronic acidku qoyaankoo dhan buu nuuga uu jirka hoostiisa gelinaya. waa takeensa jirkii inuu qurux bato, hoostii caafimaad ka muuqdo, yaro bucbuc noqday, butuc maaragtay yaro buu xoogaytisana qurux badan maasha allah tabaaraka allah. so waa idinkaa gaas insha allah. warbixin dhammaystiran waan idin siiya. kaa mid ka fiican ma jiro. siramyo fara badan oo kale way jiraan oo fiican adduunka, laakiin kanaan anigu markasta ka dooranaya. okay, this is my friend, my best friend. aad baan idin wada salaamaya maasha allah tabaaraka allah. waxaan kusoo gabagabeynaya videogaygan inaan ifraax la yidhahdaan salaamaya. aad baan u salaamaya oo maanta comment qurux badan ii soo dirtay oo igu tiri Asiya xalay baan kusoo biray channelkaaga, ilaa haddana fiidiyoyadaadii baan wada aan daawanaya. thank you very much. qalbigan kaa salaamay. thank you ifraax. welcome walaashi macaan. bye bye.